Maxamed bin Maxamed Al-Jaasir waxa uu dhashay sanadkii 1910 miilaadiga, waxa uuna ku dhashay tuulo ku taalla dalka Sacuudiga oo la yiraahdo Baruuda. Maxamed qoyska uu ka dhashay waxa ay ahaayeen beeraley, sidaa darteed inuu shaqadii aabihii camal ka dhigto oo uu noqdo beeraley ayay ka tashadeen reerkiisii. Hase yeeshee, xanuun yaraantiisii ku dhacay ayaa arrinkaa joojiyey. Markii uu shaqadii beeraha awoodi waayey, ayaa la geeyey malcamad ku taalay deegaankii uu ku noolaa, waxa uuna ka bartay Quraanka iyo akhriska afka Carabiga. Isagoo bukaan ah, haddana waxa uu Ilaahay u fududeeyey xifdiga Quraanka Kariimka ah. Sanadkii 1923, isaga oo 13 jir ah ayuu Ilaahay ka shaafiyey xanuunkii daashaday. Dabadeedna, si uu u sii wado waxbarashadiisii, ayuu aabihii u diray caasimadda dalka Sacuudiga ee Riyaad. Halkaas ayay ka bilaabatay waxbarashadiisii rasmiga ahayd, isaga oo si toos ah ugu taxmay xalqado lagu baran jiray cilmi diini ah, kana socon jiray masaajidda Riyaad. Maxamed Al-Jaasir muddo 20 sano ah markii uu ku noolaa Riyaad, si toos ahna masaajidda wax ugu baranayay, ayaa waxa uu ku caan baxay funuunta kala duwan ee afka Carabiga. Dabadeedna, jaamacadda Qaahira ee ku taalla Masar ayaa siisay deeq waxbarasho. Shahaadadii dugsiga sarena ma weydiin, sababteena u weydiin waxay ahayd aqoontiisii ayaa marag iyo markhaatiba ugu filnaatay. Imtixaankii laga qaadayna darajo fiican ayuu ka keenay. Maxamed Al-Jaasir waxa uu jaamacadda Qaahira ka bilaabay qaybta luqadaha iyo suugaanta. Sanad kaliya markii uu joogay dalka Masar ee uu jaamacaddii dhiganayay, ayuu bilowday dagaalkii labaad ee adduunka. Colaaddaasina waxay sabab u noqotay inuu Maxamed ku waayo waxbarashadiisii, una noqday dalkiisii hooyo ee Sacuudiga. Inkasta oo ayna u suuragelin miladiisii geysay dalka Masar, haddana muddadii yareed ee uu halkaa joogay waxa uu horumar ballaaran ku sameeyey aqoontiisiina waxa ay noqotay mid u muuqata dowladdiisa. Waxa uuna ka howlgalay wasaaradda waxbarashada ee dalka Sacuudiga. Waxa uu bara ka noqday dugsiyada hoose, dhexe iyo sare. Muddo kadibna waxa uu noqday kormeere ka howlgala wasaaradda waxbarashada. Yar kadib markii uu xilka hayay, ayay wasaaradda waxbarashada dalkiisa u magacaawday guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Najdi. Waxa kale oo uu jaamacadda Riyaad ka noqday macallin dhiga labada kuliyadood ee kala ah kuliyadda Carabiga iyo kuliyadda Shareecada. Waxa kale uu noqday macallin ka howlgala jaamacadda Boqor Sacuud oo iyaduna ku taalo isla dalka Sacuudiga. Maxamed Al-Jaasir kuma koobneen macallinnimo oo keliya, ee waxa uu ahaa cilmi baare, saxafi iyo qoraa caan ah. Haddii aynu milicsano suxufinimadiisii, waxa uu ahaa joornaaliste, waxa uuna lahaa 2 jaraa'id oo kala ah majalladda Riyaad iyo majalladda Yamaama. Sidoo kale waxa uu tafatire ka ahaa majallad la oran jiray Majalladda Carabta. Mar kale waxa uu ahaa cilmi baare wax laga weydiiyo juqraafiga, sooyaalka iyo suugaanta Carabta. Maxamed Al-Jaasir waxa kale oo uu ahaa aqoonyahan ka tirsan 3 urur oo ay ku boobeen aqoonyahanada Carabta. 3dan urur ee uu mid walba Maxamed xubinta ka ahaa, mid kaliya dalkiisa kama jirin, ee waxa ay ka jireen waddamo kale oo Carbeed. Taasina waxay ku tusinaysaa inuu ahaa aqoonyahan caan baxay, cilmigiisuna ku koobneen dalkii uu ku dhashay oo keliya. Taa beddelkeeda uu ahaa nin laga naadiyo meelo kala duwan oo dunida ka mid ah. Sidoo kale, Maxamed waxa uu ahaa qoraa. Waxa uu qoray in ka badan 50 kutub oo intooda badan kaga warramay sooyaalka Carabta iyo cilmiga juqraafiga. Maxamed Al-Jaasir waxa uu ku guuleystay 3 biladood oo ay 2 ka mid ah siisay boqortooyada Sacuudiga, midna uu ku abaalmariyey boqorka Imaaraadka. Maxamed Al-Jaasir isagoo aan dugsi iyo jaamacad midna soo marin, ayay haddana aqoontiisii waxtar intaa la eg yeelatay, laguna maamuusay shahaado jaamacadeed oo ay darajadeedu tahay PhD. Maxamed Al-Jaasir waxa uu dhintay 2000 ee miilaadiga. Waxa uu ku dhintay dhakhtar ku yaalla Ameerika isagoo da'diisu tahay 90 jir.